waxaa halkan inoogu qabsoomi doona xaflad runtii aad iyo aad u qurux badan ay ku qalin jabin doonaan dufcada shanaad ee xirfadaha guusha nolosha. xafladan iyo munaasabadan ujeedada ugu muhiimsan waxay tahay in loo hambalyeeyo lana dhiirigeliyo shahaadooyinkii ay mudaysteenna si fiican iyadoo qiimo badan gacanta loo geliyo ayaa ujeedada ugu muhiimsan oo maanta aan iskugu nimid waa nooca xirfadaha aan ku bartay halkan xirfado la soo koobi karo horta ma ahan haddaan laakiinse wax ka taabto waxaan dhihi karaa public speaking-ka sida walaashayda Caaisha ee ka dhawaajisay public speaking-ka horta dhibaato weyn ayaan ku qabay run ahaantii ma dareemi kartaa intuu qof wax soo bartay soo xifdiyay ama wax soo diyaariyay hadduu halkan istaaga sidii oo raba ma ahan si kale u soo jeedin ama wixii dhanba ay ka dhumayaan aniga biyaxaskayga waxa waaye waxaan leenahay laba shakhsiyadood oo cagsi isku ah markii hore waxa waaye waxa isweydii jiray waxa jeceshay maxay aysan u jecleen waxa necabtahay maxay u necbeen maxay waxaan u sameynaysaa ay kaaga soo horjeeda markaan imaaday hagaag academy oo aan qaatay xirfadii koowaad waxaan bartay shakhsiyadaha iyo siday u kala duwan yihiin marka waxaan ogaaday in aan leenahay laba shakhsiyood oo cagsi isku ah marka meesha waxa iga soo baxay in oo ilaahay ii nimceeyay oo meesha faa'iido waxa ay ugu sugan tahay maxaa yeelay waxa waaye waxaan nahay laba shakhsiyadood oo is dhameystiraysa runtii maado dheeldheela maahane aniga xataa waxay iga caawisay waxaana qof shaqaalaha kambani ka shaqeeya sida uu leeyahay xaaskaygan waxaa isku noqonay cagsi baan managerkii kambaniga cagsi isku noqonay mar walbo waxaan ahaa nin asaga waa isfaham marka dambe waxaan bartay in shakhsiyad aan aniga qaaday karin uu leeyahay kabacdi waxaan aaminay in shakhsiyadaas jirto waxaasuu ku liito waxaas ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay isticmaal waxaan dhahay bidabest maamule adi waaye marka waxaa noqday dadka ugu jeclaa kamid noqday karti u yeelo hadafkaaga harajo dhigin weligaa horta buuxi darajadaada hirka muuqda gaaro ha sugin wax soo socda hanku baadi maahay cidna lagama hele ha ka quusan weligaa haddaa hiigsi leedahay ama himilo dhaartoo hanku meel ku xiran yahay hadafkaaga guul yahay ha ka daalin guushaada horena u gaar hagaag academy waxaan ku tilaabsaday dhowr guulo waaweyn oo qurux badan markaan hagaag academy ka qalin jibiyey jaamacaddeeda waxay qaadatay shaqaalahan waxaan u gudbay in aan iska diiwaangeliyo waxbarashadeeda post graduation-ka la yiraahdo high diploma oo takhasuskayga ah iyo master degree-ga waxyaabo ugu badan isweydiyo waxa waaye kan maxay qabataa horta kan waxyaabo ay ka shaqeyso waxa waa leadership iyo development waxyaabo u baahanna waxa waaye qof walba leadership-ka waana la bartaa waana lagu dhashtaa labadaba inay jirto anu waxyaalahan aad u dareensanahay waxa kamid ah bani aadamku inuusan waqtiga ka faa'iideysanin aniga kowka waan is ogahay sababtoo ah maalin markaan waqtiga ka faa'iideysto nolosheeda isbedel baa ku dhaca laba maalmood haddaan ka faa'iideysto isbedel baa ku dhaca bil haddaan ka faa'iideysto isbedel baa ku dhaca shahaado ayaad wadataa bachelor wadataa shahaado dugsi muxuu ahaa jaamacad bachelor masters degree kala duwan kolkaas skillskaas awoodatid waxay u baahan yihiin aan dhahnay employerska ama shaqo bixiyaasha kambaniyaashu inay wax badan tixgelin doonaan maxaa muxuu ahaa added advantage ah wiil yar aan ka qoslaya aan kusoo gabagabeeye wuxuu iska jeclaa waagaas aan ka sheekeynayo 90 bilood oo saxwada cusbeed inuu dadka wacdiyo masaajidka istaago aabiisna u dii jiray wuxuu culimo ka weyn joogto nin yar taa waxma baran ha istaagin kuwa arkay masaajidka istaagay way hore kadib odaygu iska wardiyaa maalinka odaygu masaajidka maqayahay waa istaagaa waa turta kelmadiisa maalin maghrib soo isla odaygu masaajidka waa ka maqayahay ayuu istaagay kusoo istaagay safka laad wuxuu arkay aabiisa soo fiirinayo asir walaalayaal ilaa aan ka cabsano salaada hala soo miro soonkan hala tukado marka dad weyn oo wax laga sugaayay inta soo istaagaan inta dhilaadeen salaada hala soomo in oo sida loo hadlo aad barataan oo wax idin ku jira bulshada soo gaarsiin kartaan oo wax loo baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqanka wanaagsan ee horumarka keeno horumarka waxaa keeno qofka hadduu balwad yeesho oo noloshu ka dhaco oo saaqid uu noqdo oo daroogo uu barto oo waxaas uu barto yani qofkaasi muxuu horumar u samayn karaa waxa ma samayn karo
haddii ay gabadha ay fisqi iyo fasaad iyo barato iyo meel xun ka dhacdo maxay sharaf u yeelanay qofka haddii ay marada ka dhacdo muxuu yeelanaa marka horumarka lagu sheegayo ugu saxsan waa akhlaaqda iyo dhaqanka islaamka ee wanaagsan diin islaamka inay ku dhaqantaan runtii aad bay aniga galabta arrintan ugu hayd bilowga arrinta waan ogaa dufcadii koobaad ilaa hadda waan la socday dushaa inaga waardiyeenhay laakiin galabta waxay u dhalisay anigana waan ku soo biiraya insha allah haddii ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo magaca gobolka banaadir aan ku hadlaayo waxaan rabaa inaan meeshaan idinka xaqiijiyo inaan hagaag iyo ardayda kasoo wax saxiidhow aan la noqono